بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu ku jirnaa cashirkeenii labaad ee mobile applicationka flutter aan ku sameynaynay cashirkeenii hore waxaan baranay sida loo soo download garanayo Android Studio cashirkeena insha allahu taala waxaan eegaynaa marka sida loogu setup garanayo Android Studio waxaan siinaynaa right click kadib waxaan leenahay run as administrator kadib waxaan doonaynaa markaa inoo soo keenayo ka mushkiladu waxa weeyaan sidan hore kugu sheegay Windowsku ramkiisa hadduu hooseeyo culays buu ku keenaya computerka haddana waxaan isticmaalaya virtual studio aan isticmaalaya virtual studio markaa waxaan siiyey 2GB baan siiyey soo eegna culayska suu ku keeni karo 2GB ayaan siiyey noo soo wareega imika waxaa leedahay next sideeda ku daa next halkan dhigayaa buu yidhi wuxuu dhigayaa file program android studio sidiisa ku daa next sidiisaa ku daa waxaad leedahay markaa install hadda saasuu markaa inagu install garanaya intaan inoo soo wado waxaan eegaynaa kii kale kii aan soo download garanayna isagoo iska joojinaynaa hadda waxay noo socdaa Visual Studio Code ka inoo socdaa downloadkiisii waxaan doonaynaa markaa intaa inoo wado in maxay hayto isna kan kale inoo soo download gareeyo insha allahu tacaala dhigu bilaabin soo maaha save downloads inoo bilaabay wada imika iska sugaynaa markaa markuu dhameeyo ayaan videoga soo yar bilaabaya insha allahu taala laakiin intaa waan sii rakinayaa waka hadda inoo dhameeyey next baan leenahay markaa kadib waxaan leenahay markaa finish Android Studio waa barnaamij markaa loo adeegsado in lagu sameeyo programmo fara badan waxaan odhan karnaa waa yani haddii aan idhahdo waxa weeyaan lagu sameynayo kale adeegsanayo keliya mobile applicationka loo adeegsado flutter been baan u sheegnay balanegno hadda wuxuuna weydiiyey wuri do not import settings okay de waxa soo burdugarana garamayno inoo soo kacaya iminka shirkadda waxaa samaysay IntelliJ shirkaddaasaa samaysay haddii cilada ku yimaadaan ama collect usage data man diraa buu yidhi google man u diraa anigu don't send baan ku yidhi faa'iido aniga markaa noga imanaya ma jiro waa laga yaabaa shirkaddeedu waxay u urursanaysaa barnaamijka isaga automatic datada diraya markaa wuxuu diraya serveradii google marka adiga wax faa'iida kaa soo gaari maayaan laakiin faa'iidada cidda gaaraysa waa shirkadda weeyaan sababta waxa weeyaan wixii cilada ku yimi buu ururinayaa deetana uu dirayaa isaga automatic u urursanaya barnaamijku deetana google buu dirayaa serveradeedii idin marka waxay baaraysaa wixii ciladahaas ee mustaqbal ahaan aanay ciladahaas oo kale ugu soo noqon iminka wuxuuna weydiiyey inuu yidhi daqadan inaa soo baxdaa welcome soo dhaweyntii baa ku jirta halkan marka wuxuu leeyahay inuu tusaya halkan inta application aan u samayn karayno device aan u samayn karayno application waa tabletkii iyo mobilkii waa saacadihii waa telefoonadii waa kii gaariga iyo kan tabletku waa kan weeyaan I don't know waxaan ma inuu yahay internet of things inuu yahay oo waxa la isku xiraa waa iminka sida adduunka jira waxa weeye internet of thing waxaa la isku xiraa qalabkii xaafadda ku yaala oo dhan
talaagadii iyo shooladii iyo khasaaladii iyo tvgii iyo maxay tahay allahuma salli ala wixii o dhan baad ku xidhaysaa internetka. Waayo next baan xaggan leenahay. Wuxuu yidhi kaad doonaysaa choice type of setup. inaga starankan dooranaynaa wuxuu midabka editorka midabkiisa ma caddaan baad doonaysaa mise madow. dhaarkaasaan ugu jecelay mar walba dhaarkaan doortaa. kadib waxaan leenahay finish. wuxuu inoo sameynayaa faylal u baahan yahay starting download. marka faylasha u baahan yahay buu kasoo loodgaraysanayaa serveradii google ka soo qaadanaya. maxaa keenay mar walba inuu google-kana ku xidhnaado? haddaad dib u yar xasuusatid mobile applicationka maanta adduunka ama mobile os-ka adduunka maanta ugu horeeya waa laba shirkadood weeyaan. waa shirkadda koowaad waa adirweerka oo dhammaan isticmaala shirkadaha adduunka inta ugu badan ay isticmaalaan boqolkiiba 99.9 ama waxa inta ugu badan baa isticmaalaba. shirkadda mobile os-ka labaadna waxa weeye shirkadda ay leedahay os-ka ay leedahay shirkadda iphone. marka isaga waxa weeyaan allahuma salli ala maxamed. kaasina waxa weeyaan isagu iphoneka weli ku shaqeeya. marka google waxay samaysay androidka waad iibsatay. hadday iibsatayna waa inay u samaysaa marka editor lagu soo kicin lagu sameynayo waxaan wadana sheekada intuu inoo dhamayn downloadka. waa inay samaysay waxay samaysay marka editoro u saamaxaya qofkii developerka ahaa inuu samayn karo applicationno la jaan qaadi kara ama ugu talagalayo devicesidii kala duwanaa maadaama ay ku shaqeynayaan android ku shaqeynayaan androidkan iibsatay shirkadda google. marka barnaamijka laftigeeda iyadaa support garaysa. shirkadda kala design garaysay oo fikradiisa lahayd oo samayntiisa lahayd laakiin googlena waxay samaysay supportkay siisay hadday serveradii tahay iyo hadday wax kala tahayba. language kala isticmaali la socodisana waxa weeyaan language kala isticmaalina waa dartna cidda support garaysa waxa weeye shirkadda google weeyaan. taa waxaa inoo sii dheer oo kale flutter cidda support garaysa la wareegtay waa google weeyaan. yani dhammaan wixii lagu sameeyey wixii loo sameynayay oo mobile applicationka ahaa iyadaa iskale asal ahaanba hadduu systemkiisa yahay. haddii uu yahay waxa weeyaan languageka lagu sameynayo applicationkana iyadaa iskale oo tan iibsatay la wareegtay support garaynaysa. marka wixiiba maadaama ay isticmaalaysa waxay iyagu isticmaali markaa waxay isticmaashaa laga soo loodgareeya ay ku wada xidhay dhammaanteed serveradii ku xidhay. time buu qaadanaysa waa midda koowaad. wuxuu doonayaa internetku doonayaa. waa midda labaadee haddii aan eegno inta ram siiyey visualkan ramkan siiyey ramkiisu waxa weeye 2 GB ram yani nothing. u talaguna cashirada fudud aan ku baro marka ku dhigo kan waan ka guuriya insha allahu tacaala kan anigu computerkayga caadiga ah waa 16 GB masha allah weeyaan. laakiin kan kale kan hadda aan isticmaalayno waa virtualka waan ku shubay 2 GB baan siiyey marka waan ka guurinaa waxaan u guurinaa kan la yidhahdo magaciisa waa kana soo saaray laakiin ma dhamaystirna faylasha u baahan yahay baa kanaga maqan. marka hadhow baan dhamaystiri doonaa insha allahu tacaala. waxaan u guurinaa marka hadhow waxaan ku baranaya anagoo waxaan u isticmaalaya anigu inta ka dambeeya ubuntu ama linux baan isticmaalaya insha allahu tacaala. saasi ka faa'iidayso. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.